السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ciid mubaarak. barnaamijkeena maanta waxaa ku saabsan yahay shirkadda Huawei iyo Chinaha. Maraykanku muxuu rabaa inay shirkaddaasi ay hoos u dhacdo, micnaha ay China horumar ka gaari weydo dhanka technology-ga. Shirkaddan Huawei ayaa waxaa aasaasay Rang Sangfi oo wuxuu ahaa nin askari ah oo ka tirsanaa ciidamada China. Kadib markii laga fadhiisiyo howlgab la qoray ayaa waxa uu aasaasay shirkaddani 1978 cafwan 1987. haatan shirkaddani waxay tahay shirkadda kaalinta labaad ugu jirta dhanka technology-ga, dhanka soo saarta. Maraykanka ayaa haddaba waxa uu doonayaa inuu kaga hormaro inuu soo saaro adeegga la yidhaahdo 6G oo ay hadda soo saartay 5G shirkadda laga leeyahay China Huawei. meelo badan ayaan laga isticmaalin adeeggan 5G sababtoo ah weli muusan gaadhin. adeeggan 5G ayaa waxa uu caafimaadka iyo xogta dadka u isticmaalaya dowladda China. Dowladda China haddaba maxay u isticmaalaysaa shirkaddan iyadu ma laha. waxaa iskale waa shirkad uu qof keliya aasaasay oo gaar ah. dowladduna iskama laha. haddaba China waxaa ka jirta dimuqraadiyad la-aan, waxaan lagu magacaabo dimuqraadi ayaa ku yar. sababta ayaana ah inay dowladdu xogta ay dadka ay hayso oo halkaasi ay ka maamusho, ay siday doontana u geli karto xogta macluumaadyada dadka. haddaba Maraykanku dooni maayo in adeeggan uu soo gaadho dalkooda, uu amni ahaan u khatar ah in xogtooda lala wadaago, waayo adeeggan wuxuu isticmaalayaa xog fara badan. Chinuhuna mar walba wuxuu ku adkeeyay inuu waraaqa saxiixi doono, waraaqaas oo ah inaanay xogtooda dadka aynay taaban doonin. waraaqaas aan lagu kalsoonaan karin buu Maraykankuna ku tilmaamay. micnaha 5G waa 5 generation, waa jiilka shanaad, halka 6G uu yahay 6 generation. maalinba maalinta kasii dambeysa waxaa sii koraya dhanka horumarka laga gaadhayo internetka, waxaana la filayaa in ay dabar go'i doonaan shaqooyin aad u fara badan oo dad badan ay ku tirsanaayeen. waxaana meel bannaan kusoo dhacaya dadyogii ka shaqayn jiray shaqooyinkaasi dabar go'ay, sida kuwa darawaliintii ayaa waxaa loo sameeyey robotyo. kuwii ka shaqaynayay beeraha, caafimaadka oo kalkaalisooyinkii, haatan waxaa lasoo saaray robotyo kalkaalisooyina oo dhakhtarka caawinaya. meelaha qaar ayaa waxaa laga isticmaalaa adeeggan robotyada. mustaqbalka ayaa waxaa la filaya in lasoo saaro robotyo askar ah oo dowlad waliba ay dagaal ku geli doonto. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعين انت بالنوبيجي